الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ayaa waxaa ka sugan in uu yiri saddex ruux jannada gali maayaan waligood. ka ugu horeeya nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ad-dayuth waa ninka dayuuska la yiraahdo. ka labaadna waxa weeye waa haweeneyda dumarka ah ee ragga isku shabahda. ka saddexaadna waa ruuxa khamrada daa'ima. saddexdaaba nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waligood janno gali maayaan. ka ugu horeeya dayuuska ah nabiga fasiray waxa loola jeedo riwaayo kale oo xadiidka riwaayadkiisa kamida wuxuu yiri dayuusku waa ninka ehelkiisa dhexdooda xumaanta ku qira oo u daaya. ehelkaaga, xaaskaaga, gabdhahaaga, dad aad mas-uulka ka tahay xumaanta ay samaynayaan, fuxshiga ay samaynayaan, qaawanaantooda, diin la'aantooda, akhlaaq xumadooda inaad indhaha ka fiirsatood raali ka ahaato ama raaliba ha ka ahaanin aad uga aamustaay waa dayuuthnimo. dayuuthna janno ma galo. sababtu maxay tahay? لأن إيمانك وحا كمده مقتضيات كيسي وحياله كيرا وحا كمده روح إيمانك له إنو قيروضه إنو قير ليه إنو فعل لوضه حمانته إنو كفعل لوضه. ساس دراديد بالنبي صلى الله عليه وسلم منكرك إيا حمانته قود أهم با روحه هدو كحنون صنوايو كدقن وايو كحجيمون وايو. النبي صلى الله عليه وسلم oo qalbigiisu uu raali ku noqdo ama haba yaraatay uu arko wax iska caadi ah markaas iimaanba ma jiraba. wadalika adhafu al-iiman walaysa waraa dalika habatu khardal min iiman. iimaanku marka wuxuu keenayaa inuu ruux xumaanta ka qiroodo. hadii gurigiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisa ay gashana way ka darantahay. nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa wuxuu yiri qirada iyo ficilada xumaanta inuu ruuxu ka ficiltamo waxay qaarna ilaahay waa jecel yahay qaarna ilaahay waa neceb yahay. alla wuxuu jecel yahay markay tuhma soo baxdo oo ay timaado waxyaalo muuqda ama xoog badan oo mala xoog badani soo baxo inay xumaani jirto oo faaxisha jirto oo khaladaad iyo akhlaaq xumo jirto inuu arka iska badaay. markaas oo kale ninku inuu qiiroodo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa jecel yahay. midda ilaahay neceb yahayna waxa weeye iyadoon dhibiba jirinba dadkiina hagaagsan yihiin, xaaskii hagaagsan tahay, caruurtii iyo gabdhihii hagaagsan yihiin, dadkii ay nabad qabaan inuu ninku iska masayro oo tuhma iska gasho oo uu waswaas qaado oo cudur ku dhaco oo balaayo oo gurigii waa la galay oo yaa isoo daba maray. تا إلهي والنعبيه تبارك وتعالى لأن ماشي واحد كتير ما بهبه أصلك وحوي ذاتك مسلم كعلى قضاضه وحي كسر السنة إسآمنيت بيكسر السنة لبض الروح وذا تشوجنا أصل وحوي نسآمن زيهين ساس درادت هذين الريبة يوحته مكة إيمان إلهي قيرض النوع عصو كلا أما تشعله لكن وحد شعلي هاي مركي وحصاب بحال إنه ننكو قيراضه وريركي سي عروتي سي يمحو قبله سي إلى الشر. وحصونا النبي جينا كسو وحكسونا صلوات ربي والسلام عليه. حديث تكسوغان نلي هذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه من قيمة بدنها وقاسها أيا وحو يري هدان خير كيجي حاس كيجي أكتر نن أجو إمات ولا إنا سيف كل فنبول ولبا لنا هذا كل فن ما يأف كذا كل فنبول. warkii baa nabiga gaaray sallallahu alayhi wasallam waxa rasuulka ilaahay ninkii saxadaha wuxuu leeyahay haddaan gurigayga iyo reerkayga nin ugu imaado seef baan kaga takhalus. markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma waxaad la yaabatihiin qayrada iyo masayrka iyo ficilada sacad ma la yaabteen? ilaahay baan ku dhaartay ana ka qayro badan anigana ilaahay baa iga qayro badan. sidaas daraadeed ilaahay inuu qiiro leeyahay daraadeed
ayuu wuxuu u xarimay dembiyada foosha xun oo dhan buu u xarimay zinada liwaadka qashinka akhlaaq xumada wuxuu u xarimay lianna ilaahay qayru leeyahay tabaaraka wa tacaala qayradiisa darteed buu u xarimay marka anigana ilaahay baa iga qayro badan aniguna sacad baan ka qayro badnahay sacad qiiradiisana wax lala yaaba ma aha ninku inuu reerkiisa iyo ehelkiisa u qiiroodo buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed ruux hadduusan qiiro lahayn oo xumaanta uusan ka qiiroonin gurigiisa iyo reerkiisa iyo gabdhihiisa iyo xaaskiisa macnaheedu waxa waa dayuuthna janno geli maayo qodobka koobaadi waa kaa sababta rabbigeen tabaaraka wa tacaala mas-uuliyad buu ninka saaray reerkiisa mas-uuliyad baa ka saaran sida xadiidka nabiga fi saxiixayn xadiidka cabdullahi ibni cumar kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatihi aayaddu qur-aankana rabbi inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyow quu anfusakum wa ahlikum naara naftiinna iyo ehelkiinna xaaskaaga iyo carruurtaada naar ka ilaaliya waxa weeye mas-uuliyadda qaada oo xifdiya xumaanta ka ilaaliya naar u sabab noqonaysa waajibaadka diintay dayacayaan ka ilaaliyo naar ugu sabab noqonaya macnahaasaa laga wadaa naar ka ilaaliya ruuxa labaad ee nebigu sheegay sal alla alay wasalam inuusan janno gelaynin alrajula min annisaa waa haweenaydaa ragga isu ekaysiisa ninka iska dhigta طبعا ragguna waa la mid waa xadiis kaleetaa nebigu wuxuu leeyahay sal alla alay wasalam lacnada ilaahay ha ku dhacdo ama ilaahay waa lacnadoo naxariistiisa waa ka fogeeyey ragga dumarka isu ekaysiiya iyo dumarka ragga isu ekaysiiya labada jinsi oo rag iyo dumarka ah mid walba ilaahay baa abuuray hadduu ilaahay abuurayna mid walba abuurkiisa ilaahay waa qurxiyo waa wanaajiyey dabeecad khaasu mid walba siiyey walaysa dakaru kalunthaa dhadiga iyo labku isku mid maaha allaha abuuray baa tabaaraka wa tacaala jidhkoodana kala duway shaqada jidhkaasi qabanayana isagaa kala duway jidhka dumarka waxaa ilaahay u sameeyey shaqo alla ugu talagalay oo uu qaban karo qaab uu u noolaan karo ilaahay ugu talagalay baa jira jidhka raggana qaab kalea loo sameeyey oo ka duwan maxaa yeelay hawsha uu qabanayuu ku beesgaraysan yahy oo ku salaysan yahay hadday gaala inkirtay oo labada jinsi kala duwanaantooda ay inkireen waxay ilaa hadda inkiri la'yihiin wiilka iyo gabadhu markay soo dhashaan oo barbaarayaanba waa kala baxayaan ihtimaamaadkoodu waa kala baxayaa caadifadoodu waa kala baxaysaa shaqaday qabanayaan waa kala baxaysaa abuurkoodii iyo physically siday ku soo baxayaan waa kala baxayaa walaysa dakaru kalunthaa allihii abuurtay baa saa u kala duway kanna sidaa ka dhigay kanna sidaa ka dhigay labadooduna sidooday ku quruxsan yihiin allah baa tabaaraka wa tacaala midna sidan u qurxiyey midna sidan u qurxiyey kee fool xuna marka foolxumadiisa ka soo cararaya oo ka kale isku qurxinaya ya ma mid fool xun baa jira ma dumar baa fool xun oo dumarnimada intay ka cararaan raadinaya rag dhaqankii mise raggaa foolxumo lagu abuuray foolxumada ka cararaya oo dumar iska dhigaya labadaba ilaahay waa qurxiyey tabaaraka wa tacaala limaada marka jinsi kale inaad noqoto aad u raadinaysa socodkaaga qaabdhaqankaaga labiskaaga tasarufaadkaada khasaa'ista jinsigani leeyahay ka gud khasaa'ista jinsigani leeyahay gelin dumar baa tahay qaabka dumar loogu talagalay u dhaqan akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii qaado rag baa tahay jidkaa mar khasaa'ista labada jinsi ilaahay kala duway haddii laysu ekaysiyo raggu dumar xaggooda aadaanna waa lacnadan yihin hadday dumarku xagga ragga soo aadaan oo dhaqankoodii khasaa'istoodii qaataanna waa lacnadan yihiin saasuu nabigeennu u tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yidhi labada jinsi jiritaankooda iyo mid walba inuu jira xikmad ah waxaa ku salaysan in aadamaha tarankiisu sii jiro haddii labadooda mid ka baxo khadkiisa aadamaha tarankiisii waa baaba'ayaa mafsado weyn baana caalamka kusoo kordhaysa waana midda maanta reer galbeedku horseedka ay u yihiin fasaad weyn iyo fitno weyn iyo aafo weyn baa aadamaha kusoo wajahan qaab dhaqanka reer galbeedku adduunka ay u hogaaminayaan sababta waxa weeye jinsigii dumarka ayay dumarnimadii ka saarayaan markaasaa waxay ka dhigaan doonaan inay rag ka dhigaan halkaasi wax badan baa ku baaba'aya fasaad badan baana aadamaha soo waajahaya taasi waxa weeye nabigeennu miduu tilmaamay oo salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenayda ragga isu ekaysiinaysa iyaduna janno geli mayso
midka saddexaad ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegay inuusan janno galaynin waa mudminul khamri waa ruuxa khamrada cabitaankeeda iyo isticmaalkeeda daa'ima hadduu cabay oo ka toobad keenay mar cabay oo ka soo noqday mar kale cabay oo ilaahay u soo laabtay toobad uu ku dhintay ma aha laakiin wuu cabay siduu u cabay oo u isticmaalay buu ku geeriyooday janno gali maayo buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maxaa yeelay khamrada iyo dadkeedaba ilaahay waa lacnaday jibriil baa nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam jibriil alayhi salaam malakul jibriil baa nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri muhammadow allah tabaaraka wa taala khamrada waa lacnaday midka hagaajinayana waa lacnaday oo sameeynaya ka loo sameeynaya dalbadayna ilaahay waa lacnaday midka cabayana ilaahay waa lacnaday midka xambaarsan ee xamaaliga ee tunka ku sida ama gaariga ku sidana ilaahay waa lacnaday midka uu u sidee uu u sii wado isagana ilaahay waa lacnaday midka iibiyay ee gadaya ka ganacsanaya alla waa lacnaday midka ka iibsanaya ee qaadanaya alla waa lacnaday midka waraabinaya kabriyeriga waiterka shaqaynaya khamrada u shushubahaya waraabinayana ilaahay waa lacnaday ka loo shubayee dalbadayna ilaahay waa lacnaday midka lacagteeda cunayna ilaahay waa lacnaday wax kastoo khamrada calaaqalla ilaahay waa lacnaday khamro maxaa la yidhaahdaa shariicadu khamro waxay u taqaanaa wax kastoo maskaxda bini aadamka isbedel ku sameeya maanka aadamaha wixii tagsiiya ama si tartiiba ha u tagsiyo ama hal mar ha tagsiyo ama ha wada tagsiyo ama qaar ka mid ah ha tagsiyo khamray shariicadu u taqaanaa الخمر ما خامر العقل واي خمر waxa la yiraahdaa wixii aqliga daboola aadamaha aqligiisa dib u geesiyo dareenkiisa iyo fahamkiisa iyo maankiisa iyo dhimirkiisa dib u geeysta la yiraahdaa ama ha noqdo wax la cuno la ruugo ama ha noqdo wax la cabo ama ha noqdo wax xididada laga qaato la isku duro wax nooc dooni ha ahaado sidoo dooni ha u yaalo sidoo dooni ha loo isticmaalo marba haduu maskaxda iyo maanka wax yeelayo waa khamro nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam shayga hadaad badsato maankaaga doorinayay intiisa yarna waa xaraam in yar hadaad ka kabato ama wax yar ka isticmaasho maankaaga doorin maayo laakiin hadaad kamiye badan ka isticmaasho maankaaga wuu doorinayaa waa khamra buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taa macnaheedu wax weeyaan adiga ha fiirin ma la cabaa mise lama cabo khamra ma u yaqaana dadku ma ku magacaabaan mise kuma magacaabaan laakiin waxaad fiirisaa saameynta uu ku leeyahay bini aadanka maankiisa marba haduu saameynayo خلاص khamra weeyaan sidaas daradeed baa waxa sax ah in la yiraahdo qaadku waa khamro laana aadamaha inta wax garanaysa gaal iyo muslimba baaritaanka lagu sameeyay wuxuu sugayaa inay ku jirto maadaamaanka bini aadamka doorisa mar haduu maanka bini aadamka doorinayo waa khamro xugum khamar buu khamru leeyahay ka ganacsanaya lacnadan ka cunaya lacnadan midka loo xambaarsan yahay diyaaradaha ku qaadaya lacnadan midka xambaaraya lacnadan ka loo sii wada lacnadan ka gadanaya lacnadan midka iibinaya lacnadan ka lacagta ay ka soo baxday cunaya lacnadan laana maxay kaga duwan tahay xashiishada maandooriyaha qaadka khamrada kulli isku meel waay ninkii kala qaadana daliil baa looga baahan yahay laana shariicadu magacyada lama tacaamusho qaad baa la yiraahdaa waa caleen lama tacaamusho laakiin waxay la tacaamushaa xukun ka saartaa saameyntu leeyahay waa nooce muxuu saameyn leeyahay adib ila dalika inta ka badaran maanka ka darano xoolihii buu gubay xoolo uma hadin muslimiintii walilaasaf dadka u badan oo qaadka cunaya muslimiinta waa hantidoodii ay wax ku dhisan lahaayeen ku noolaan lahaayeen ummada kala gurtay iyaguna caleen maandooriye aba laga buuxiyay oo guryahoodii iyo dalalkoodii iyo deegaamadooda looga buuxiyay xoolihii baabee aqligii baaba hanti ma jirto diini ma jirto nafi ma jirto inta daroogad iyo qaadka la isticmaalayo waa wax bini aadamka burburinayo dagaalada iyo aafada kicinaya oo nin daroogaysan wax buu dili oo gaarigu wada uu rogi oo dad buu baabi'ini oo dhiigi daaday
dhiig ma fayooba oo diini ma fayooba oo caqli ma fayooba oo nasli iyo taran ma fayooba raggii qaad cunay dumar ma hayaan taran ma hayaan qoysaskii baaba'e intaasoo fitan iyo fasaad buu la dheeriyaa khamrada bacda dalika in la yidhaahdo waa quutu lawliyaa ayu quutin wa ayu awliyaa awliyaau shaytaan haulaa ya yuquudu yahay sax waa quutu lawliyaa laakiin awliyadee waa awliyaau shaytaan waay awliyaa raxmaan maa awliyaau shaytaan quudkoodii waay waa quud shaytaan waay sidaas daraaddeed ruuxa daa'ima nooca iyo wixii ku yimaado isagoo isticmaalaya ku geeriyoodon ka toobadkeenin jannada ilaahay waa ka xarimay naarna waa gelaya sallu wasallimu calaa khatami alanbiyaai walmursaliin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة